labadan walaalaha in badan ayay si adag u shaqeeyeen, lacag ayay ururiyeen, ugu dambeyntiina waxay iibsadeen guri dabaq ah, iyagoo u malaynaya in noloshooda farxadda leh ay halkaas ka bilaaban doonto. Laakiin ma aysan ogeyn in guriga ay si dhib badan ku heleen uu dhab ahaantii ahaa guri la habaaray. Kadib markay soo guureen, Johe waxay bilowday inay si xad dhaaf ah u dhibsato buuqa ka imaanaya dabaqa sare, iyadoo aan dulqaad dambe u hayn. Waxay go'aansatay inay saqafka ku dhejiso suufiyo jilicsan si ay u yarayso buuqa. Laakiin iyadoo ku dhow inay dhamayso, buuqii dhibka badnaa ayaa mar kale si xoog leh uga yeeray korka. Isla markiiba Johe waxay soo qaadatay kamaradeeda si ay u duubto codka, iyadoo qorsheynaysa inay caddayn u isticmaasho markay la muranto deriska sare. Laakiin daqiiqad kadib, cod yaab leh oo xoqid ah ayaa ka yeeray balakoonka. Isla waqtigaas telefoonku u dhacay, iyadoo aan ka fikirin ayay kamaradii miiska saartay, iyadoo u jeedisa dhanka balakoonka. Laakiin dhinaca kale ee khadka idna kama hadlin. Kadib si lama filaan ah, dabaqa sare ayaa si xoog leh u yeeray. Nalalkii guriga oo dhan si kedis ah ayay u dameen, iyadoo yaaban ayay istaagtay. Laakiin wax yar kadib nalalkii si caadi ah ayay u soo noqdeen. buuqii sare weli wuu socday, waxayna go'aansatay inay kor u kacdo si ay ula muranto deriska. Ma aysan ogeyn in waqtigaas hooska haweenay uu taagnaa balakoonka. codkii xoqidda ahaa ayaa mar kale soo noqday. kadibna Johe si lama filaan ah ayay u baabaday. 4 maalmood kadib, shirkaddii ay ka shaqaynaysay ayaa ogaatay inay shaqada iman weyday. Markaas ayay booliiska waceen. Boolisku waxay la xiriireen walaasheed Jo Young, sababtoo ah Jo Young waxay ku noolayd hoyga shaqada oo ay saacado dheeraad ah shaqayn jirtay. muddo dheer lama aysan xiriirin walaasheed. Markay guriga ku soo laabatay, waxay aragtay warqad ku dhegan albaabka oo lagu xasuusinayo in aan buuq laga samaynin guriga. Markay gudaha gashay, qolka fadhiga wuxuu ahaa mid fowda ah, qolka jiifkana xitaa wuu ka sii darnaa. Cadho ayaa qabsatay, waxayna isla markiiba isku dayday inay wacdo walaasheed, laakiin telefoonkii wuu dansanaa. waxay xasuusatay sida Johe mar walba uga caban jirtay buuqa ka imaanaya dabaqa sare, laakiin iyadu ma aysan fahmin, maadaama ay lahayd dhibaato maqalka ah oo aysan waxba maqli karin qalab la'aan. xitaa waxay mar tiri, maadaama aan guriga iibsanay waa inaan la qabsanaa. hadalkaas ayaa Johe ka dhigay mid aamusan. markaas kadib Jo Young waxay bilowday inay ka shakiso in maqnaanshaha walaasheed uu xiriir la leeyahay buuqa. waxay u baxday goobtii ay Johe ka shaqayn jirtay si ay ula hadasho saaxiibkeed ugu dhow Kihon. Kihon wuxuu u sheegay in mar kasta oo uu telefoon kula hadlo Johe ay had iyo jeer weydiiso haddii uu maqlayo codad yaab leh, laakiin isaga weligiis waxba ma maqal. markii ay guriga ku soo laabatay, Jo Young waxay heshay telefoonkii walaasheed, laakiin wuu dansanaa. arrintani waxay u muuqatay mid aad u yaab leh, maadaama Johe mar walba telefoonka sidato meel kasta oo ay tagto. haddase guriga ayuu yaalay. waxay go'aansatay inay shido si ay u aragto haddii ay wax raad ah ka heli karto. laakiin markii ay hoos u foorarsatay si ay u qaadato xadhigga gargarka, waxay si lama filaan ah u aragtay meel weyn oo caaryo ah oo dhulka ku taal. intay falcelin ka samayn lahayd ka hor, albaabka ayaa la garaacay. markay weydiisay qofka, waxay ogaatay inuu yahay nin degan dabaqa hoose nambar 5/4. wuxuu u yimid inuu ku yidhaahdo ha samayn buuq. Jo Young waxay isku dayday inay sharaxdo inaysan cidna joogin guriga maalmahan oo buuqa uusan iyaga ka imaan karin, laakiin ninkii ma dhagaysan. indhihiisu waxay ahaayeen qabow, wuxuuna ku hanjabay in haddii buuqu sii socdo uu afkeeda jeexi doono. markuu baxay kadib, Jo Young waxay aragtay haweenay timo dhaadheer leh oo taagan dhammaadka marinka, aan dhaqaaqayn cabsi darteed. si degdeg ah ayay albaabka u xirtay. markii telefoonkii si buuxda u shidmay, waxay isku dayday inay furto, laakiin ma aysan garan baswordka. maalintii xigtay, waxay u tagtay xafiiska amniga si ay u weydiiso waardiyaha haddii uu arkay walaasheed. waardiyuhu wuxuu sheegay in muddo ka hor Johe ay timid oo ay ka cabatay buuq, laakiin muddo dheer ma uusan arkin. markay ka hadashay ninka dabaqa hoose, wuxuu u sheegay in ninkaas Jong Sim isaguna uu ka cabanayo buuq, wuxuuna ka codsaday inay fahanto xaaladda. kadib si caadi ah ayuu u yidhi, maadaama gurigu yahay nambar 6/4, derisku si gaar ah ayay u fiirsanayaan, isagoo doonaya inuu sii sharaxo wixii hore uga dhacay gurigaas. haweenay ayaa si degdeg ah u timid, iyadoo sheegtay ur xun oo ka imaanaya dhulka hoose. waardiyihii si degdeg ah ayuu u furay albaabka hoose, markaasna ur aad u daran ayaa ka soo baxay. wuxuu sharaxay in muddo 10 sano ah dadku halkaas qashin ku tuurayeen oo uu isu beddelay meel aad u wasakh badan. inkasta oo albaabka la xiray, dadka qaar weli daaqada ayay ka tuuraan qashinka. nadiifintiisu waxay u baahan tahay lacag aad u badan, cidna ma rabto inay bixiso. sidaas darteedna arrintu weli way taagan tahay. maalmo yar kadib, Jo Young waxay ka tagtay shaqadeedii, waxayna go'aansatay inay guriga ku soo laabato si ay waqti badan ugu hesho raadinta walaasheed. maalintaas waxay sidoo kale ahayd dhalashadeeda. markay miiska fiirisay oo ka buuxay kimchi, si lama filaan ah ayay u xasuusatay Johe. Johe mar walba way ogeyd in Jo Young jeceshahay kimchi, sidaas darteed sanad kasta maalinta dhalashada waxay u diyaarin jirtay cunto badan. laakiin sanadkan Johe ma joogto. markaas ayaa fikrad ku dhalatay. waxay go'aansatay inay isku daydo taariikhda dhalashadeeda inay ka dhigto furaha telefoonka walaasheed. si lama filaan ah way shaqaysay. markay furtay telefoonka, waxay aragtay duubisyo badan. mid ayay si random ah u furtay, laakiin 2 ilbiriqsi kadib, cod qarax ah ayaa si xoog leh uga dhacay dhegaheeda. maadaama ay xirnayd qalabka maqalka, ma aysan kala saari karin in codku ka yimid telefoonka ama dabaqa sare. markii dambe, waxay u laabatay qolka jiifka, waxayna sii waday dhegaysiga. waxay maqashay codka Johe oo ka buuxay cabasho iyo cabsi. markaas ayay fahamtay heerka ay gaartay walaasheed, laakiin waxay sidoo kale maqashay cod kale sida qof kale oo la hadlayo.
inkastoo aysan fahmi karin waxa la leeyahay waxay dareentay sida codkaas uu agteeda joogo laakiin markay hareeraha egtay cidna ma jirin daqiiqad kadib waxay u malaysay inay maqashay codka walaasheed oo dhegta ugu hadlaya cabsi darteed si degdeg ah ayay telefoonka u tuurtay wax yar kadib gambaleelka albaabka ayaa mar kale dhacay markan Jo Young si cad ayay u maqashay codka Johe oo bannaanka ka yeeraya isla hadalna si joogto ah u celinaya iyadoo dareemaysa in wax khaldan yihiin ma aysan furin albaabka balse waxay ka fiirisay godka yar ee albaabka qofka bannaanka taagan indhihiisu waxay ahaayeen madow oo qoto dheer mana ahayn Johe kadib codkii xoqidda ahaa ayaa mar kale soo noqday oo ku darsamay qaylo fiiqan codkaas ayaa si daran u dhibay Jo Young ilaa ay dhulka ku dhacday ilbiriqsiga xigay si lama filaan ah ayay hurdada uga toostay laakiin weli ma aysan hubin in waxa dhacay uu ahaa riyo ama xaqiiqo wax yar kadib Ki-hon ayaa u yimid intii ay wada hadleen waxay ogaatay in Ki-hon uu ahaa saaxiibkii qarsoonaa ee Johe muddo 6 bilood ah ayay xiriir lahaayeen laakiin maalmo badan ayuu waayay xiriirkeeda sidaas darteed ayuu u yimid inuu caawiyo labadooduba waxay aadeen xafiiska degmada si ay wax uga ogaadaan wixii hore uga dhacay dhismahan sarkaalka halkaas jooga ayaa u sheegay in bilo ka hor haweenay ku nooleed guriga nambar 6/4 ay ka cabatay buuq xitaa waxay sheegtay inay aragtay waxyaabo aan caadi ahayn maalmo yar kadib urxun ayaa ka soo baxay gurigeeda markii la furay waxaa la ogaaday inay isdishay markay maqashay arrintan Jo Young qalbigeeda cabsi ayaa buuxisay xitaa fikirka ah in gurigaas uu mar ka dhacay dhimasho ayaa jirkeeda gariir geliyey kadib Ki-hon ayaa la soo noqday guriga markan albaabka waxaa ku dhigan warqad weyn mar kale lagu qoray buuq ha samaynina Jo Young waxay u malaysay in ninka dabaqa hoose uu sameeyey wax yar kadib Ki-hon wuxuu bilaabay inuu sameeyo waraaqo lagu raadinayo Johe isla waqtigaas Jo Young waxaa soo wacay booliiska iyagoo weydiinaya haddii ay wax cusub heshay waxay u sheegtay hanjabaadii Jong Sim waxayna ku adkaysatay in maqnaanshaha walaasheed uu isaga la xiriiro laakiin caddayn la'aan booliisku ma qaban karaan waxay sidoo kale u sheegeen in kamarado ay yaalaan meel u dhow dhismaha laakiin markii la hubiyey Johe weligeed kama bixin dhismaha markaas Jo Young waxay rumaysatay in walaasheed lagu qariyey gudaha dhismaha gaar ahaan guriga Jong Sim waxay ka codsatay booliiska inay si qoto dheer u baaraan laakiin iyaga waxay yidhaahdeen caddayn la'aan ma geli karno gurigiisa wax yar kadib gambaleelka albaabka ayaa dhacay qofka yimid wuxuu ahaa Jong Sim Ki-hon ayaa albaabka furay si uu ula hadlo Jong Sim markuu arkay nin wuxuu beddelay wejigiisa laakiin haddana gudaha ayuu eegay sida inuu og yahay in Jo Young joogto wuxuu si kooban u yidhi fadlan buuq ha samaynina kadibna wuu iska baxay markuu gurigiisa ku laabtay wuxuu soo saaray mindi qarsoon cadaadiska buuqa ayaa maskaxdiisa gaarsiiyey heer waali dhinaca kale Jo Young waxay bilowday inay meel kasta ku dhejiso waraaqaha raadinta walaasheed intay sidaas samaynaysay waxay aragtay wiil yar oo eegaya daaqadda dhulka hoose iyadoo xiisaynaysa way u foorarsatay si ay u eegto laakiin wiilkii wuu istaagay wuuna baxay markaas ayay nal yar ku ifisay si ay u sii baarto isla markiiba haweenay lagu magacaabo Jeong In oo degan guriga 8/4 ayaa ka soo baxday gadaasheeda waxay uga digtay inaysan waraaqa ku dhejin dhismaha sababtoo ah sanadkan waxaa jira qorshe dib u dhis ah haddii sumcadda dhismaha xumaato qiimaha guryaha wuu dhici doonaa Jo Young waxay aamusnaatay laakiin shaki ayaa qalbigeeda galay markay guriga ku soo laabatay Jo Young waxay si aamusan u fiirisay waraaqda raadinta walaasheed qalbigeeda waxaa ka buuxay murugo iyo wareer si lama filaan ah qufulkii albaabka ayaa isfuray iyadoo naxsan ayay dib u eegtay qofkii soo galay wuxuu ahaa Johe iyadoo aan ka fikirin Jo Young si degdeg ah ayay u orday si ay u qabato oo u habsiiso laakiin Johe si xoog leh ayay u riixday waxayna si toos ah u gashay qolka jiifka iyadoo yaaban Jo Young ayaa daba gashay si ay u weydiiso meesha ay joogtay laakiin markay gudaha gashay qolka wuu madnaa Johe meesha ma joogin iyadoo wareersan cod ayaa ka yeeray qolka fadhiga markay u baxday waxay ogaatay inay ahayd riyo kale iyadoo isku dayaysa inay isdejiso waxay aaday jikada si ay biyo u cabto laakiin si lama filaan ah waxay aragtay wax u eg qof oo taagan balakoonka cabsi darteed ayay istaagtay waxayna rabtay inay cararto laakiin isla waqtigaas Jong Sim ayaa ka soo muuqday albaabka isagoo isku dayaya inuu furaha geliyo nasiib wanaag hooskii balakoonka wuu baaba'ay markaas ayay qaadatay mindi jikada iyadoo si geesinimo leh ugu baxday balakoonka markay hubisay waxba ma jirin kadib waxay ka fiirisay albaabka Jong Sim wuu baxay neef dheer ayay qaaday laakiin dhinaca kale Jong Sim wuxuu mar hore gaaray heer waali wuxuu bilaabay inuu dabaq kasta baadho isagoo raadinaya halka buuqa ka imanayo ugu dambayn dulqaadkii wuu ka dhammaaday wuxuuna bilaabay inuu qayliyo markuu jeestay wuxuu arkay qofka eegaya geeska kore ee albaab isla markiiba nalka dareemaha ayaa shiday wuxuu isku dayay inuu si fiican u eego kadibna wuu cararay isagoo mar kasta dib u eegaya laakiin si lama filaan ah wuxuu ku dhacay muraayad wuxuuna ka dhacay meel sare halkaasna wuu ku dhintay subaxdii xigtay Jo Young waxay maqashay siranka booliiska si degdeg ah ayay hoos ugu orday markay aragtay maydka wuxuu ahaa Jong Sim isla markiiba waxay u sheegtay sarkaalka in ninkaas uu ahaa dariska hoose waxayna ka codsatay inay gurigiisa baaraan laakiin booliisku waxay yidhaahdeen hore ayay u baareen waxayna heleen wax caadi ah cidna laguma qarin waxay bilaabeen inay u maleeyaan in Jo Young ay wax iska maleegayso iyagoo uga digay inay eedayn u jeedin cid kale
caddayn laan isla wakhtigaas hogaamiyaha dadka degan ayaa yimi wuxuuna ku yidhi jooji buuqa iyo dhibaatada haddii kale waad ka shalaayi doontaa wuxuu sidoo kale sheegay in guriga 6-4 uu u muuqdo mid la habaaray qof kasta oo degana uu noqdo mid waalan xitaa dadka kore iyo hoose ma aha kuwa caadi ah Jo Young ma aysan fahmin hadalkiisa markaas ayay go'aansatay inay aado guriga 8-4 si ay ula hadasho Jeong In markay gaartay guriga 8-4 gabar yar ayaa si degdeg ah uga orday gadaasheeda Jeong In ayaa sharaxday inay tahay gabadheeda yar ee ciyaarta jecel intii ay wada hadlayeen Jo Young waxay wax ka ogaatay wixii hore uga dhacay dhismaha haweeney hore u deganayd guriga 7-4 ayaa mar walba ka caban jirtay buuqa si ay uga aarsato waxay istaagi jirtay kursi dusheeda waxayna saqafka ku garaaci jirtay digsi si ay deriska sare u dhibto laakiin buuqaas wuxuu kiciyey ninkii deganaa 6-4 wakhtigaas isagoo xanaaqsan ayuu kor u baxay wuxuuna haweenaydii ku weeraray dube markuu garwaaqsaday waxa uu sameeyey wuu cararay laakiin haweenaydii isla markiiba ma dhiman daqiiqadihii ugu dambeeyey waxay garaacaysay derbiyada iyo sagxadda iyadoo gargaar dalbanaysa halka afkeeda uu ka yeerayey cod xoqid ah oo argagax leh laakiin deriska waxay u qaateen buuq caadi ah wayna iska indho tireen markii meydkeeda la helay dadka degan waxay ka baqeen in mashruuca dib u dhiska uu fashilmo sidaas darteed waxay go'aansadeen in arrinta la qariyo tan iyo maalintaas ninkii 6-4 wuu la waayey cidna ma oga halka uu aaday markay tan maqashay Jo Young ayaa naxday waxay weydiisay yaa hadda degan 7-4 Jeong In waxay si degan u tiri cidna tan iyo markii ay dhimatay qalbigeeda waxaa galay cabsi markay guriga ku soo laabatay waxay mar kale aragtay warqad ku dhegan albaabka laakiin markan waxay ahayd mid ka sii cabsi badan waxay hore u aaminsanayd in Jong Sim uu warqadaha dhigi jiray laakiin hadda wuu dhintay taasi waxay ka dhigan tahay qof kale ayaa samaynaya markay warqaddii ka qaaday waxay aragtay inay madhan tahay laakiin hoosteeda erayo dhiig lagu qoray ayaa ka muuqday albaabka iyagoo ku leh naarta aad maalintii xigtay Jo Young waxay mar kale ku dhejisay waraaqaha raadinta isla wakhtigaasna shir dib u dhis ah ayaa socday hogaamiyaha dadka degan wuxuu isku dayay inuu u muuqdo mid naxariis leh laakiin Jo Young gudaha ayay ka gubatay markay aragtay waraaq ka mid ah kuwa walaasheed oo cagaha lagu tumanayo murugo iyo xanaaq ayaa isku beddelay dab si lama filaan ah ayay u qaadatay mikrofoonka waxayna ku qaylisay walaashay si qarsoodi ah ayay uga baxday dhismahan anigu dib u dhis ma rabo waxaan rabaa inaan helo walaashay dadkii ayaa buuq galay laakiin iyadu ma aysan joojin waxay ku adkaysatay in walaasheed lagu qariyey gudaha dhismaha isla wakhtigaas Ki-hoon ayaa yimid wuxuuna si degdeg ah uga qaaday halkaas wuxuu u sheegay in baaritaankiisa uu muujiyey in ninkii 6-4 uusan weligii iska bixin dhismaha taasi waxay ka dhigan tahay inuu weli gudaha ku jiro markay tan maqashay Jo Young maskaxdeeda hal meel ayay tagtay dhulka hoose meesha urka xun ka imaanayay oo cidna weligeed si dhab ah u baarin iyagoo cabsi iyo geesinimo isku daraya labadooduba waxay go'aansadeen inay hoos u degaan iyagoo qalbigoodu gariirayo Jo Young iyo Ki-hoon waxay hoos ugu degeen qolka hoose ee urka xun ka buuxo qashinka uraya ayaa meel walba yaalay hawaduna waxay ahayd mid neefta kugu adkaynaysa labadoodii way kala tageen si ay u baaraan meel walba Ki-hoon isagoo duubaya muuqaal ayaa si lama filaan ah u arkay hoos madow oo gees ku jira isagoo naftiisa dejinaya ayuu telefoonkiisa iftiinka ku eegay waxa uu arkay ninkii 6-4 jidhkiisa ayaa dhulka yaalay markuu isku dayay inuu u dhowaado cod aad u daran ayaa dhigihiisa ku dhacay ilbiriqsi kadib madaxa ninka ayaa si lama filaan ah ugu soo rogay cagihiisa hortooda dhanka kale Jo Young waxba ma helin waxayna u dhaqaaqday dhanka Ki-hoon laakiin markay aragtay wax baa khaldan waxay isku dayday inay u dhowaato laakiin qaylo iyo dhawaaq xanuun leh ayaa dhegaha kaga dhacay Ki-hoon jidhkiisa ayaa si lama filaan ah u gariiray ilbiriqsi kadib wuxuu si xoog leh ugu booday Jo Young wuxuuna ku tuuray dhulka magaciisa ayay ugu yeertay marar badan laakiin wax jawaab ah ma helin indhihiisa waxaa ka muuqday rabitaan dil sida qof la qabsaday iyadoo cabsi darteed Jo Young waxay qaaday dhagax waxayna ku dhufatay madaxa Ki-hoon ugu dambayn way ka baxsatay si degdeg ah ayay jaranjarada u fuushay laakiin Ki-hoon ayaa qabtay lugaha gadaal markaas hogaamiyihii dadka degan ayaa yimid oo badbaadiyey Jo Young markay indhaha furtay waxay joogtay xafiiska maamulka nabaradeeda waa la daweeyey waxay ogaatay in qofkii badbaadiyey uu ahaa isla hogaamiyaha isagoo sharaxaya wuxuu sheegay inuu si kadis ah u arkay isagoo maraya dhulka hoose booliiskana waa la wacay laakiin wax kale ayaa maskaxdeeda galay waxay tidhi dhismahan waxaan ku arkay 2 carruur ah oo keliya mid waa wiilkaaga midna waa gabadha Jeong In hogaamiyihii ayaa la yaabay wuxuuna yidhi Jeong In ma laha gabar nool qalbigeeda ayaa istaagay waxay xasuusatay gabadhii ay aragtay runta ayaa si tartiib ah u soo baxaysay markaas ayaa booliisku wacay markay hoos u gaartay waxay ogaatay Ki-hoon inuu dhintay iyadoo cabsi leh waxay sheegtay inay aragtay albaab bir ah oo ku yaal dhulka hoose laakiin booliisku waxay yidhaahdeen albaab noocaas ah ma jiro waxay u maleeyeen inay maskax ahaan jabtay laakiin iyadu ma quusan keligeed ayay mar kale hoos u gashay gudaha waxay heshay kamaradii walaasheed markay daawatay muuqaalka waxay aragtay Johe oo galaysa guriga 8-4 gudaha waxaa yaalay qalabyo sameeya gariir
taasoo caddaynaysay in buuqa uu ahaa mid la sameeyey. qofkii sameeyeyna wuxuu ahaa Jeong-in. muuqaalku wuxuu muujiyey wax cabsi leh. Jeong-in waxay la hadlaysay qof, laakiin qof kale ma muuqan. Jo-hee waxay ogaatay in Jeong-in ay halis tahay, laakiin waa daahday. Jeong-in ayaa ku dhuftay koobna madaxa kaga jebisay. hadda runta waa caddaatay. dhammaan waxa dhacay waxaa ka dambeeyey Jeong-in. Jo-young waxay maqashay cod daciif ah. markay raacday waxay heshay walaasheed oo ku dhuumanaysa gees. Jo-hee waxay ahayd mid dhimasho u dhow. iyadoo degdeg ah ayay qaaday, laakiin Jeong-in ayaa sugaysay albaabka iyadoo dhoola caddaynaysa. dube ayay gacanta ku haysay. Jo-young si degdeg ah ayay albaab bir ah u xirtay, waxayna u qaaday walaasheed meel kale, laakiin waddo kale ma jirin. waxay qarisay walaasheed, iyaduna waxay wajahday Jeong-in. Jeong-in waxay qiratay inay dishay haweenaydii 7-4. sababta gabadheeda ayaa mar dhimatay shil gaari, waxayna eedda saartay deriska. xanuunkaas ayaa ka dhigay mid waalan. Jeong-in si tartiib ah ayay u soo socotay si ay u disho Jo-young. Jo-young way carartay, laakiin codkii xoqida ahaa ayaa mar kale yimid. iyadoo aan u adkaysan karin waxay iska saartay qalabkii maqalka. adduunka ayaa aamusay, laakiin ilbiriqsi kadib Jeong-in hortooda ayay istaagtay. waxay ku dhufatay dube. Jo-young dhulka ayay ku dhacday. Jeong-in ayaa kor fadhiisatay si ay u dhammayso, laakiin codkii ayaa mar kale soo noqday. Jo-young fursad ayay heshay, wayna baxsatay. Jeong-in waxay baryaysay, fadlan i badbaadi. laakiin Jo-young waxay aragtay ruuxii haweenaydii 7-4. cabsi darteed madaxa ma aysan qaadin. ugu dambayn waxay go'aansatay inaysan badbaadin Jeong-in. albaabkii ayay si xoog leh u xirtay. Jeong-in waxay bilowday inay garaacdo, laakiin qofna ma iman. dadku waxay u qaateen buuq caadi ah. ugu dambayn Jo-young waxay la baxsatay walaasheed. maalmo kadib deris cusub ayaa u yimid hadiyado. wuxuu yidhi, waxaan isku dayi doonaa inaanan buuq samayn.